السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. waxaynu isku soo noqonnay xalaqadeennii afraad ramadaanka aynu ugu talagalnay oo ah majaalistii ramadaanka oo aan kaga hadlaynay arrimaha ramadaanka iyo cibaadadiisa si gaara u khuseeya. waxa ay ku saabsan tahay waxa weeye xalaqadeennani qiyaamu ramadaan iyo xukunkeeda ayay ku saabsan tahay. qiyaamu ramadaan wuxuu ka mid yahay cibaadooyinka ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay ramadaanka, haddana uu ugu talagalay qofka muslimkiihi inuu ramadaan intuu ugu tababar qaato sanadka dhan uu sidaas kuwada ugu talagalay ayay ka mid tahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo jeedeeyey cibaadooyin, haddana wuu inoo tanwiiciyeyoo noocyo kala duwan ayuu inooga dhigay si aynu mid walba uga qaadano qayb, si aynaan u cajisin. haddaad wax keliya wado bani aadamka dabeecadiisa waxweyn inuu cajiso oo uu ka kala daato. marka si ayna taasi u dhicin oo camalka aynaan u daynin ayaa kolba nooc kolkaan mid ku jiraba kale ayaan uga sii wareegaynaa. marka waanan wada garanaynaa oo de kulligeen hadda cusub oon inoo sheegayaa ma jiro. anwaac cibaadooyinka iyo acmaasha waxaa ka mid ah matalan salaadaha faralka oo kale ilaahay addoommadiisa uu ku waajibiyey 5 salaadood oo habeen iyo maalina. waa markii la yidhaha ficil in ahaan inta loo qabanayo, laakiin marka miisaanka la yidhaahdo 50 salaadood noqonaya. ilaahay subxaanahu watacaala deeqdiisa ayuu hal subax baad tukanaysaa 5 subax buu kuu qorayaa, hal duhur baad tukanaysaa 5 duhur buu kuu qorayaa, hal casar baad tukanaysaa 5 casar buu kuu qorayaa, oo sidaasay ku soconaysaa. miyaynu mudannay? miyaynu shaqaysannay? maya, laakiin ilaahay baa subxaanahu watacaala inoogu deeqay oo ay camalkeennu meel aynama gaadhsiiyeen. ilaahay jannadiisana waa qaali weeye oo laguma iibin karo, camalkeennan laguma iibin karo. saas darteed ayuu ilaahay subxaanahu watacaala inoogu badiyey si markaa waxweeyaan salaadihii inoogu kaamil noqdaan, faralkii waxweeyaan oo aynu dhowaanshaha ilaahay aynu sii helo. waxaa ka mid a acmaasha waxaa ka mid a dee nawaafishii ama rawaatibtii salaadihii raatibooyinka la odhanayay ee faralka la socday ama ka horeeyey ama ka dambeeyey ee subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaba lahaa ayaa ma garanaysaa ka mid a. waxaa ka mid a salaatuleylka oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ammaanay kitaabkiisa dadka guta ee la yimaada uu ku ammaanay. muuminiintana sideedaba meesha ugu dambaysa ee lagu kala shaandheeyo inay ka dhab tahay qofka muuminka iimaanku inuu ka dhab yahay iyo in kale lagu kala garto ay tahay salaatuleylku. ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa yabiituuna lirabbihim rabbigood u baryaya sujuudan wa qiyaaman, habeenkaas u dhammaanayo iyagoo sujuud iyo qiyaam ku jira. meesha qayrkood ay hurdaan ayay iyagu sujuud iyo qiyaam ku jiraan. wuxuu yidhi kale allah subxaanahu watacaala tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici, dhinacoodu wuxuu ka dheeraaday jiifka, yadcuuna rabbahum waxay baryayaan rabbigood khawfan cabsi oo tamcan iyo rajo, wamima rasaqnaahum yunfiquun waxaanu ku arsaaqnayn way bixinayaan. cibaadooyinka kala duwan ee sadaqadu ka mid tahay ayaa ilaahay ku ammaanay. falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun. marka dee nafina ma oga waxa ilaahay u kaydiyey ee wax indhuhu ku farxaana jazaan bimaa kaanuu yacmaluun, waxay samaynayaan jazaheeda weeyaan. waqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam, rasuulkuna wuxuu yidhi afdalu salaati bacda alfariidati salaatuleyl, salaada ugu fadliga badan markii faradka laga yimaado salaatuleylka weeyaan buu yidhi. waxaa ka yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam, ayuha nnaasu dadow afshu salaama, salaamta faafiya, waatcimu acaama, masaakiinta cuntada quudiya, wasilu arxama, qaraabada xidhiidhiya, wasalluu bileyli wannaasu niyaamun, habeenkiina dadkoo hurdo tukada, tadkhulu ljannata bisalaam, jannada waxaad ku gelaysaan nabadgelyo ayuu yidhi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. salaatuleylka waxaa ka mid a witri baa ka mid a oo salaatuleylkii qayb ka mid a ama lagu gebagabeeyo oo ay hal ragcadii u yar tahay. inta ugu badanna ayna xad muxadidan ayna lahayn, laakiin
nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa inoo sheegay inuu 11 tukan jiray oo markaa hal ragcada witri u ahayd ama ku ma garanaysaa ku dhammaystiri jiray waa nabiga calayhi salaatu wasalaam man yuhib man habba an yutra bi wahdatin falyafal ruuxii doonaya inuu hal ragcada witri kaga dhiga ha dhammaystirto ha ka dhiga hal ragcada kaliya waxa kaloo ku witriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ama ku witri kara qofka muslimkii 3 ragcadood maadaama nabigu sallallahu alayhi wasallam man habba an yutra bi 3 falyafal ruuxii doonaya inuu 3 witri ka dhigto ha yeelo haddii marka uu doono inuu xiriiriyana wuu xiriirin karaa oo 3 ragcadoodba hal atixiyaad uu fadhiistay hal salaamo naqsi uu samayn karaa haddii uu jeclaado inuu laba tukado hal ragcada uu gaar tukadana ayadana wuu yeeli karaa xadiidka Bukhari warinay Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu kana yusallimu bayna rak'atayn wa rak'ati al-filutri labada ragcadood iyo halka ragcada salaam buu dhaxaysiinayay kama ka bixitaan hatta kana amru ba'da haajati ila marka inta dhexdeeda waxa uu qabsanayay hawluhu doonayo uu qabsada nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu doonana nabigu calayhi salaatu wasalaam 5 buu ku tirinayay marka qofka muslimka 5 ka dhigara 5tana saas oo kale 5 israacsan oo too dhamaysan atixiyaad loo fadhiisto yaad samayn kartaa ma ahe 4 iyo hal ragcada ayada iyagana aad samayn kartaa 4 hadaad samaysana 4taas way xiriirsan yihiin too dhamaysan aad fadhiisanaysaa ee waxa weyn halka ragcadana gaar baad u tukanaysaa Aisha waxa laga wariyay radiyallahu anha qaalat waxay tiri كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة habeenkii wuxuu tukanayay 13 yutir min dalika bi 5 oo 5 kamida ku yutirinayay la yajlis fi shay min illa fi akhirina oo unan fadhiisan ila ugu dambaysa mooyaan 7 hadaad doonto witri baad ka dhigi kartaa 9 hadaad doonto witri baad ka dhigi kartaa si Allah sidii adiga kula qumanaata sidii adigu aad doonto yaad mid walba aad samayn kartaa 12 baad tukan kartaa marka haddii marka uu ma garanaysaa laba iyo qofku tukan karaa laba kul ku tukada ka baxo laba kul ku tukada ka baxo laba kul ku tukada ka baxo afar buu tukan karaa afartaas laakiin waa xiriir oo 4 ragcadood ugu dambayso ma taxid fadhiisanaya 8 baa uu wax samayn karaa inuu xiriiriyo oo hal ragcadana uu gaar ka dhigo ayuu samayn karaa intuba daliilkoodu uu wada yaalayo Aisha radiyallahu anha iyo saxaabadu way inooga waramayaan marka taasi qofku markuu keligii uu gurigiisa ku tukanaya masaajidka ha ku tukadaba uu ku tukanaya weeye laakiin markii masaajidda caamka ee dadku isugu yimaadaan sida hadaynu salaada taraawiixda u tukano kale iyo salaada tahajjudkeen u kacno inuu tukano kale waxa weeye in wax fiican laba loo tukado sababtoo tahay dadku isku mid ma aha dadku isku taagni macni wax weeye isku karitaan ma aha dadka qaar ba awooda qaarna ma awoodaan marka sida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri ayyukum ama naasa falyujiz kiini dadka tukanaya soo gaabiyo fa inna min waraa'i al-kabiir wa ad-daciif wa al-haaja waxa ku daba tukanaya ruuxi daadaha waxa ku daba tukanaya kii taag dadara waxa ku daba tukanaya qof dambale oo doonaya isaguna hore u tago yaa ku daba tukanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam marka saas darteed waxa fiican hadaad tukanayso inaad laba ugu tukato لكن وكلي تكنيو فليصلي كيف شاء صوربو هو تكدو هذا جمع كوبان oo iyagu isla haysta oo ku heshiiyay inay salaada dheereystaan afar ka dhigtaan afar tukadaan ayihina iyadana wax weey waa say rabaan weey salaatul leelku bisha ramadaan gaar ahaan fadiilo ayuu leeyahay yani maziye gaar waa nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam man qama ramadana إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه قفك رمضان قيام سمايا سوى إلهنا الرميسان أجرنا الدونية وغفر له ما تقدم من ذنبه سهرا بالله في أبيري نبي عليه الصلاة والسلام إيمانا مركل إلهي بالرميسان يهي يوحو الديارية أو ثواب كيسا احتسابا مركل إلهنا وحو الضلبية أو أدوتو كنيسا أدقو إلهي ثواب كرادينية ووح كوغو حنباري arinta ama ku kalifay ama ku riixay aanu jirin oo la yiraahdo i arkay la yiraahdo i maqlay wala talabu maal xoolo raadis aadan u tukanaynin sharaf iyo magac raadis aadan u tukanaynin qiyam ramadaan shaamilun li salaat fi awwal layl wa akhiri aslan qiyam ramadaan marka la yiraahdana salaada gelinka hore la tukado iyo ta gelinka dambe la tukado intaba way kulminaysaa marka
taraawiixdu waxay ka mid tahay qiyaamu ramadaan tahajjudka aynu tukanana isna wuxuu ka mid yahay qiyaamu ramadaan waxaa habboon alxirsu calayha in lagu dadaalo oo aada loo daneeyo ajri iyo thawaab ilaahay lagaga raadiyo waayo waa habeenno kooban weeyaan oo qofka muuminkiihi uu ka faa'iidaysanayo intaanay habeenada iyo jaaniskaas koobani una ka tegin taraawiix baa lagu magacaabay waxaa loogu magacaabay dadka ayaa ma garanaysaa aada u dheeraysanayey markay 4 tukadaan markay 2 tukadaanba way nasanayeen saasaa marka taraawiix loo yiriyo tii la nasnasanay idhaha weeyaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yani awal man sanna aljamaacata fi salaat taraawiix fi lmasjid masaajidka in salaad taraawiix jamac lagu tukado waxa ugu horjideeyay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam kadibna wuxuu daayay isagoo ka cabsanaya in ummadiisa lagu faral yeelo sida Aisha warinayso radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam fil masjid dhaat laylatin rasuulku habeenada kamida masjidka ku tukaday oo deedna dad ay ku soo urureen haddana habeenkii labaad dad kale ku soo urureen haddana habeenkii saddexaad dad kale ku soo urureen haddana habeenkii afraad uu gooyay nabigu calayhi salaatu wasalaam u soo bixi waayay markaasaa wuxuu aroortii ku yiri waan ogaa sidii ma garanaysa ay idin yeesheen waan arkayay idin soo bixi waayay waxaan idin soo bixi waayay ilaa inni khashiitu an tufrada calaykum waxaan ka cabsaday in la idinku faral yeelo ramadaanna way ahayd bay tiri Aisha أبي ذر وحال قورنا رضي الله عنه قالوا حري صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول كان لصومني فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر قيام الليل وأنه لسمي مجره إلى بشة الضبك عدي فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل مركاسا وحو قيام بنا لسميي إلى أن يصدح ميلود مهلانا يتكتي حدنا هبينكي كوحيتي لح أيهر سنيد مونا قيام كينا لا سمينين حدنا كل كيشان هر سنيد ayaa ilaa habeenku kala barmay ayuu qiyaamkana la sameeyay waxaan ku niri hadaan noogu sii wado noo ziyaadiso wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam innahu man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla ruuxa sidiisaba imaamka la tukada ilaa imaamku salaada ka dhameynaya la dhamaysta waxa loo qorayaa qiyamu laylati ma loo qorayaa habeen dhan oo tukaday baa loo qorayaa inagu wax weeyaan waxaad moodaa nooc ma garanaysaa nafta uun iyo dadka iska raac ay tahayo waxaad arkaysaa qofka taraawiix imanaya wuxuu samaynayaa waxa weeye imaamkii kolkuu dhexda marayo ayuu goosanaya salaada marka 20 la tukanayana dad baa 8 ku baxa dad baa 10 ku baxa salaada markii dadka dartood warba dadku ay baxayaane aan salaada dib u raro aan 8 ku soo ururina markii la yirina dad baa haddana 4 ku baxay marka maxaa loo jeedaa macni waa arin ciyaab leh weeyaan waxa weeye taraawiixda tiradeeda salafu saalix way isku khilaafeen iyo witrigaba waxa qola tiri 41 ragcadood hal tukado 41 ragcadood qolana waxay tiri 39 ragcadood hal tukado qolana waxay yiraahdeen 29 hal tukado qolana waxay yiraahdeen 23 hal tukado qolo waxay tiri 19 hal tukado qolo waxay tiri 13 hal tukado qolo waxay tiri 12 la tukado wax kalena waa la sheegay intaasoo dhan waxa weeye culimada ijtihaadkeeda waxa keenay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay ikhtiyaar ayuu ka dhigay cid walba wixii ay awoodi karto inay tukato ayuu ikhtiyaar uga dhigay marka yani waxa la weydiiyay Aisha sidee bay nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisu ay ahayd ramadaanka waxay tiri Aisha ma kaana yaziidu fi ramadaana ولا غيره على 11 ركعة رمضان يا غير كيتونا كوبية طبعا كما زيادين لكن مهمته حويان النبي عليه الصلاة والسلام سنيسا وحن كفهميناي إيه السيدة الروين نفهمناي وسيدة أي صحابة أفهمين سيد عمر رضي الله تعالى عنه مركي وصلاة صلاة الليل يا صلاة تراويح دب أسون وليي وإن الجمع لقيت كذا دب أسون ولي وقت جيسي wuxuu ka dhigay in koob 23 ragcadood la tukado Ubay ibn Kacbna waxa weeyaan oo tukiyo dadka ayuu ka dhigay marka yani marka saasay deedna ay qolaba ay meel ugu dhufsatay cid walba marka dadaalkeeda wax didan oo kooban oo meel ku xidhxidhani ma jiro salafu saalix salaadaha aad bay u dhaadheereynayeen
haddii marka aynu idhaahno matalan salaada nebiga oo kale sala allahu alayh wasalam ee 11 Caaisha ku sheegtay dee 11 waxaa ka mid ahaanaysa ragcad albaqra iyo alcimraan iyo suuratu nisaa saddexdaas suuradood oo kaamil ah hal ragcada keliya lagu tukanayo yaa ka mid ahayd nebigaan ku dayanaya haddana waxa weeyaan in yaroo gaagaaban baan ka boodboodsiinaya dee nebiga kumaada dayanin ha ku been abuuran nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad rasuulka ku dayanayso siduu rasuulku u dheereey haddii kale nebi ku dayashadii iyo rasuulka sunnihiisoo la noolaynayo oo lagu dhaqmayo weeye kulliye waxaad samaysaa wixii aad tukan karta tuko haddaad badsan karta ragcadaha badso haddii aad garanaysaa ragcadahoo la badsado wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam laba xadiid laga wariyey in ay fadli badan tahay qiyaamka dheer waxaa kaloo laga wariyey inay fadli badan tahay kathratu sujuudda faraha badan labadiiba marka waa laba fadli haddaad qiyaamka dheeraysatana dee khasab waxay noqonaysaa inay ragcaduhu koobnaadaan haddaad qiyaamka gaagaabsatana waa inay ragcaduhu bataan oo sujuuduhu kuu bataan sujuuduhu inay kuu bataan marka labadaas sidii isu waafajin lahayd ayaa adiga kuu taalla laakiin inaad haydha jecli beerka jecli iyo kolba aniga sida ii dhib yar baan yaa naftaydu raacaysaa sida ii dhib yari waxa weeyaan in aan rasuulkan ku dayanaya idhaahdo haddana waxa weeyaan ficilkii aanan waafajinin taasi waxa weeyaan ku dayashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aha dumarku way xaadirayaan sida raggu uga qaybgelayaan ayay uga qaybgelayaan salaadaha nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoonta ilaahay masaajidda ilaahay ha u diidina xikmadda ilaahay uu salaatul taraawiixda u jideeyey baa waxay tahay dadku markii ay afuraan la isma kantarooli kara in badanoo dadka ka mid yihi waa la dhergayaa markii la dhergo haddana haddii lagu seexdo waa lagu xanuunsanayaa khatar baa lagu gelayaa marka saas darteed waa in taraawiixda la tukado oo la iskaga daacdaaciyo markaad 23 ragcadood aad xidhiidhiso waxaa la hubaa intaad si fiican u daacdaacdo inaad magaranaysa adoo fudud aad seexanayso ayaa la hubaa waxaagana hore isu soo raacso aad 11 tukatana sidoo kale iyadana kuwa ku fudaydinaysaayo laakiin haddii aad tiraahdo caawa waan dhereegsanayo taraawiix ma tukan karo xikmaddii looga lahaaba aday yahaydba waxaa loo jeedayba aduu ahaa adiga dhergeybo haddaad aadan waxa weye dhergi jirin oo aad caawa dheregtay caawaba si gaara hawsha kuusii haysataaba marka waa in ma garanaysaa hawshaas qaabka loogu dadaalo ma garanaysaa waa in haweenku markay imanayaan xushmaddii iyo aadaabtii iyo waxa weeyaan inay ilaaliyaan inaynan suuqa sii gelin oo ay horay u hoydaan masaajidka u dhow ay ku tukadaan si badbaadadooda iyo nabadooda u ilaashadaan rag iyo dumarbana waxaa wanaagsan raggu hadda waxay sameeyaan inta taraawiixda hore la yar boobsiiyo oo inta hore dadka lala tukado ayaa fadhi ku dirirkii maanta laga maqnaaba loo ordaya oo loo yaacaya taasina waa masiibo weeyaan looma baahna midda iyada waxa weeye bil cibaada la galay waa inaad totally jadwalkaagii iyo barnaamijkaagii iyo schedule-kaagii kulliyan waa inaad bedesho waa in qorshe cusub aad samaysato ah dabeecadaadii oo dhan inaad bedesho oo ay noqoto inaad toos u hoyato hore u seexato hore u kacdo salaatuleilka gelinka dambe witriga u kacdo yaa loo baahan yahay marka jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala khayrka ayna waafajiyo dembigeenan allaha dhaafo waalidiinteen dunuubtooda allaha dhaafo muslimiintoo dhanba ilahay dunuubtooda allaha dhaafo allaha raxmuraxiimkeen ha naxariisto sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin xalaqada xigta intaynu isugu soo noqon doono waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu